وحقيق internet lacag waa ka samayn kartaa laakiin haddii aad u baahan tahay internet lacag ka samayso waa inaad raacdaa shantan rule ee soo socda marka anaga waxaan kugu sameynaynaa waxa ay tahay aan kugu sameynaynaa website aan kugu siinaa domain aan ku barayna wixii aad ku shaqaysan lahayd haddii aad jeceshahay inaad affiliate marketing noqoto aan ku barno sida share linkiyada loo codsado sida proposal loo dirsado sida macallada meelaha lagu xayeysiiyo qaabka loo xayeysiiyo haddii aad jeceshahay inaad noqoto blogger nin fikrado wato oo wax askaliga qori kara inaan ku barno qaabkii bloggerka qaabkii website-kaaga aad wax ugu qori lahayd qaabkii aad website-kaaga aad ugu xiri lahayd Google AdSense xayeysiinta qaabka aad u dalban lahayd qaabkii aad Google-ka website-kaaga u noqon lahaa mid available ah markii Google lagu qoro soo baxa taasna waa gooni waxa kale oo samayn karta haddii aad jeceshahay in aad noqoto nin ka faaloodo wararka oo kale example oo kale wararka siyaasadda ama waxaas sida qaabkii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhawaad Habqad Academy waa mid wax lagu barto aan wax ku bari karto haddii aad aqoon leedahay waa nagu soo biri kartaa aqoontaada si dadka ugu faa'iideystaan haddii aad adiga aqoon doonayso xirfad gooni aad doonaysan macnaheedu waxay tahay in aad soo booqato website-ka si aad xirfadaasi aad ku hesho si bilaash ah waxaan mar walba aanu dadaalnaa oo aanu ka fikirnaa aanu raadinaa waxay tahay xirfadaha kala duwan ee suuqa internetka lacag looga sameeyo iyo sida dhalinta Soomaaliyeed khaasatan dhalinta wadanka jooga ay fursado uga heli lahaayeen malaayiintaas ee lacagta ka sameynaya internetka dhexdiisa iyagoo fursadooda ka faa'iideysanaya waxaan mar walba ka hadalnaa waxay tahay sida lacagta loo sameeyo internetka sida ma horta wax sahlan lacag in la sameeyo mana jirto cid lacag ku bixinaysa wax aan ka soo noqosho lahayn macnaheedu ay tahay in haddii qof lacag bixinaya aragto qofkaas waxa uu rabaa lacagta uu bixinayo wax ka badan in ay soo galaan marka laakiin waxa la rabaa in aad adiga mar walba aad ka fikirto oo aad maskaxda ku hayso in aysan jirin lacag aad inaad samayso si sahlan aad ku helayso ma jirto adduunka meel laga helayo ma jirto waxa ugu soo dhow mushaarkaaga waa inaad shaqo codsataa dalbataa interview lagu yeeshaa kadib shaqada aad shaqaysaa timing iyo management wax badan aad hagaajisaa kadib ayaad lacagtii biliga ku soo dhacaysa taasna waa shaqo laakiin waxaa jirta xirfado kala duwan oo xagga internetka fursado ka banaan waxay u banaan tahay dadka shaqeeya part time-ka dadka shaqeeya caadi u shaqeeya kaliya waxay u baahan tahay 1 hour 2 hours oo aad shaqada ku celceliso oo aad shaqada qabsato mar walba waxaan halkan aan ku soo bandhignaa shaqooyinka iyo fursadaha ka banaan internetka maanta waxa ka duwan tahay arrimihii hore ma sheegayo intaas baa lacag laga helaa iyo meeshaas baa lacag laga sameeyaa maanta waxaan soo dhigayaa fursad ay ka faa'iideysan doonaan malaayiin iyo kumanaan arday hadday ay diyaar u yihiin dhalin Soomaaliyeed mar walba waa ogtihiin in wax la qabta la rabo inay u baahan tahay qarash dhibka jiraan waxay tahay qarash la'aanta haysata dhalinta Soomaaliyeed sidaa awgeed marka anaga waxaan ku fikirnay in marka hore xirfad aad barataa sida affiliate marketing inaad xayeysiin noqoto linkiyada company-da ka soo qaato bardhogyada ama sarfiyada wax xayeysiiso ama inaad noqoto nin maxaa Google AdSense manager noqoto sida Google-ka aad company-da aad shirkadahaasi aad Google-ka aad u keento dad badan sales-kooda ama service-kooda aad u gaarsiiso adduunka meelaha kala duwan aadna mar walba ku soo xirto customer cusub tasaddexaadna waxay tahay inaad naftaada aad u shaqaysato aad noqoto blogger ama aad noqoto qof product iibiya ama aad noqoto qof service bixiya intaa waxay u baahan tahay inaad ka shaqayso website inaad hesho website dhameystiran oo domain leh oo shaqaynaya oo design-kii lagu hagaajiyay oo loogadii la hagaajiyay dhammaan adiga kuu qaas ah website inaad samaysana waxay u baahan tahay waa la socotaan $100 haddaad domain-ka iyo hosting-ka iibiso waxay u baahan tahay ugu yaraan 200 250 300 400 weli qofkii ku sii sameynayay ay lacag holinkaasi qaadanay marka qofkeena inta ma awoodo lacagtii ma bixin karo wadanka waxaan ka hadlahay dhalinta Soomaaliyeed wadanka jooga marka fursad waxaan isnir marka ka duwan taas in aan keeno oo aan isnaano fursadaasi bal mid ka duwan oo ka jaban ama ka macquulsan si dhalinta ay ugu faa'iideystaan wax yar oo macquul ahna oo intaasi maxaa la yiraahdaa wax la yiraahdo collaboration oo ah in wada jir example marka anaga marka Habqad Academy ahaan waxaan marka sameynay project la yiraahdo iscaawiya waxay tahay macnaheedu in aad adiga meeshii aad ka bixin lahayd 200 ama 300 ama 400 ama 500 aad bixiso kaliya $15 $15 waxay tahay wax lagu sameeyaa domain ayaa lagu siinayaa wax lagu sameeyaa website waxa lagu sameeyaa website-kaas ayaa lagu design gareynayaa oo nooca adiga haddii aad jeceshahay inaad noqoto blogger qaybta bloggerka haddii aad jeceshahay inaad noqoto product qof ku iibiya inaad productkii ku iibinayso qaabkii lagu baro haddii aad jeceshahay in aad affiliate links aad ka shaqaysato aad company-da aad u xayeysiiso qaabkii aad ku xayeysiin lahayd waxa kale lagu barayaa affiliate marketing sida loo sameeyo sida share sell sida lacag looga sameeyo digistore sida lacag looga sameeyo clickbank upwork dhamaantood
waxay u baahan yihiin meel aad kusoo bandhigto oo ah website. marka anaga waxaan kuu sameynaynaa waxa ay tahay in $15 aan kugu sameynayno website, aan kugu siinayno domain, aan ku barayno wixii aad ku shaqaysan lahayd. haddii aad jeceshahay inaad affiliate marketing noqoto, aan ku barno sida share is linkiyada loo codsado, sida proposal loo dirsado, sida macallin meelaha lagu xayeysiiyo, qaabka loo xayeysiiyo. haddii aad jeceshahay inaad noqoto blogger nin fikrado wato oo wax asal kaliya qori kara, inaan ku barno qaabkii bloggerka, qaabkii website-kaaga aad wax ugu qori lahayd, qaabkii aad website-kaaga aad ugu xiri lahayd Google AdSense xayeysiinta, qaabkii aad u dalban lahayd, qaabkii aad Google-ka website-kaaga u noqon lahaa mid available ah markii Google lagu qoro soo baxa. taasna waa gooni. waxa kale oo samayn kartaa haddii aad jeceshahay in aad noqoto nin ka faalooda wararka oo kaleeto, example oo kaleeto wararka siyaasadda ama waxaas, sida qaabkii aad news magazine-ka loo sameeyo oo lagu sameyn lahaa magazine cusub, lagu bari lahaa qaabka aad u soo gashan lahayd, lagu bari lahaa qaabkii aad u soo gelin lahayd magazine-ka wararka. waxa kale oo jirta haddii aad jeceshahay inaad noqoto product nin iibiyo, product waxa lagu barayaa in aad noqoto qof productkiisa soo gelin kara, update ku sameyn kara, baran kara sida loo xayeysiiyo. haddii aad jeceshahay Google Manager inaad noqoto oo aad Google Ads Manager aad noqoto, inaad qudad Google Ads Manager ku shaqeeyo. haddii aad xirfad leedahay oo ah in aad IT-da xoogaa ku fiican tahay oo aad u baahan tahay oo aad website aad u baahan tahay oo macnaha dadka ay kala soo xiriiraan, service-yada aad bixisay iyo qaababkii qarashaadkii wixii dhammaan lagu soo aad ku soo muujin lahayd, waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin website lagu dhiso oo dadka kala xiriiraan. intaas marka haddii aad $15 aad ku helayso, ma jirto meel adduunka $15 looga helo oo intaasoo shaqo loo qabto. marka anaga marka waxay tahay macnaheedu tahay in horta la helo horta marka hore wado saxan oo ah in dhalinta Soomaaliyeed kaga faa'iideystaan. marka waxaan rajeynayaa inaad aad iyo aad ii fahanteen, muuqaalkana sii share gareeya, asxaabtiina la wadaaga wixii taas fursada asxaabtiina la wadaaga, sii share gareeya. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan fursadan oo ah in furdo waxay soconaysaa muddo bil ah laga bilaabo 11 bisha ilaa 12 bisha. waxaan rajeynayaa arday badan inay ka faa'iideysan doonaan fursadan qaaliga ah. wixii su'aalo ah, wixii macluumaad kale oo dheeri oo nala soo xiriir kartaan qaybta WhatsApp-ka aan soo dhignay Telegram-keena. marka hore kusoo biira Telegram-keena, halkaas ayaan waxaan kusoo bandhignaa fursadaha iyo wax walba oo cusub oo aan is leenahay waxtar ay leeyihiin. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan, asxaabtiin la wadaaga. cid walba oo xiiseynaysa oo jecel in ay suuqa internetka lacag ka samayso, cid walba oo jecel in suuqa internetka horumar ka gaarto, xaqiiqdii wax la kala qarinaya meesha ma jirto. haddii aad rabto inaad aqoon ama xirfad aad leedahay oo aad adiga waxa qabsan karto waa okay, laakiin haddii adiga aad xirfadii aad aqoonin ama xirfadii aad leedahay laakiin qaabkii loo marayay, wadooyinkii loo marayay aysan aqoonin, habqaad waxay diyaar u tahay inay ku caawiso in ay mar walba ay ku samayso waxa adiga as leedahay. waa laga caawin karaa. sii share gareeya, asxaabtiin la wadaaga. Telegram-keena waxaan dhignaa qaybta hoose